Kukai waxa uuna u dhacay wareysigii sida tan. safiirkii hore ee Mareykanka Steven Schwartz oo hadda ah howlgab ayaan wax ka weydiiyay xaaladda Soomaaliya. ugu horreyn safiirka waxa aan weydiiyay sidee u aragtaa xaaladda Soomaaliya ee xilligan. It's a dangerous one and an unfortunate one. I think this did not need to happen. But I think if we've looked at Somalia over the last 4 years, Majo presidency, there's been a consistent pattern in that. xaaladdu waa mid khatar ah oo nasiib darro xambaarsan. waxay ila tahay looma baahnayn in xaaladdu ay sidan noqoto, balse haddii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ee u dambeysay ee Farmaajo, waxaa jiray dhaqan joogto ah oo muujinaya inuusan marnaba isku dayin doonayninna in la helo hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay. lama qaadin tallaabooyinkii muhiimka u ahaa inay dhacdo doorasho qof iyo codda si taasi dhab u noqoto. waxaa kale uu Farmaajo diiday inuu la shaqeeyo madaxweynayaashii gobollada marka laga reebo kuwa uu isagu awoodda ku taageeray oo daacad u ahaa. taana wuu ku guulaystay meelo badan, balse kumaanu guulaysan Jubbaland iyo Puntland oo hogaamiyeyaashoodu ay yihiin kuwa khibrad leh, haystana kalsoonida deegaanadooda, kuwaasoo dhinaca kalena si wanaagsan u shaqeeya. Farmaajo dhinaca kale ma doonaynin inuu tanaasulo iyadoo la eegayo danaha dalka. marka hadda waxaa soo haray waa dowlad aan haysan sharciyad, qaab ahaan, awood ahaan iyo marka aynu eegno dastuurkaba. xaaladuna waa mid hadda kacsan. beesha caalamka oo Mareykanku uu ka mid yahay waxay soo saareen qoraallo adag oo ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta iyo wax ka beddelka hanaankii doorashada Soomaaliya oo baarlamaanku uu meel mariyay. Soomaaliya waxay uga jawaabtay iyana qoraal kale oo ay ugu baaqday saaxiibada beesha caalamka inay ixtiraamaan madax bannaanida siyaasadda iyo midda dal ee Soomaaliya. sidee arrintaasi u aragtaa? Over the last 2 or 3 months, the responses, the statements from the Somali government have been pretty severe in many cases towards the international community. I think they're trying to put on a show of strength rhetorically, saying that they won't be pushed around. But they're very selective because they're relying on the international. labadii ama saddexdii bilood ee u dambeysay jawaabaha dawladda federaalka ah ee ku wajahan qoraalada beesha caalamka waxa ay ahaayeen kuwo aad u adag, marxalado badan. waxaan u malaynayaa in ay isku dayayaan in ay hadal ahaan muujiyaan awood iyaga oo sheegaya in aan la qasbi karin. hase yeeshee aad ayay uga fiirsanayaan, sababtoo ah beesha caalamka ayay isku halaynayaan marka ay noqoto badbaadadooda. haddii ay ahaan lahayd kaalmada dibadeed, dayn cafinta, xawaaladaha iyo mawaaqifta ku wajahan lacagta sirta ah ee ka imanaysa dowladda Qatar. sidoo kalena haddii ay ahaan lahayd tababarada ciidamada militari iyo taageerada kale ay bixiso Turki. haddii ay ahaan lahayd nooc kasta oo taageero ah oo kala duwan oo ay ka helaan Eritrea. dhammaan beesha caalamka oo kala duwan ayaa taageeraysa Soomaalida, Soomaaliya iyo xitaa dowladdan. sidaa daraaddeed waa wax yaab leh inaad isugu yeerto in aad ka madax bannaan tahay danahaasi iyo cadaadisyadaas. muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu waxa ay doonayaan in ay doortaan hogaamiyahooda, horeyna way ugu doorteen si aan toos ahayn. ugu yaraan 2 hogaamiye ee hore waxa ay lahaayeen bisayl siyaasadeed oo ay taas ku gartaan, una dhageystaan codbixiyayaasha, kana degaan xilka si ay u oggolaadaan in awoodda si nabdoon lagula kala wareego. waddankuna wuxuu lahaa sooyaalka arrintan, taasoo mudan in lagu ammaano. haddase Farmaajo waxa uu si ula kac ah u dhaawacay arrintaasi, wuxuuna Soomaaliya u jiheeyey waddo xun. waad ogtahay, aniga hadda ma ahi mas-uul Maraykana, Maraykankuse wuxuu soo saaray qoraal adag, balse waxaan rajaynayaa inay taasi ka sii badiyaan, ayna qaadaan tallaabooyin adag. sababtoo ah ma jirto sabab aan ku aaminno in Farmaajo uu si la doorbido uga jawaabi doono codsiyada ay sameeyeen Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Maraykanka, UK, Midowga Yurub iyo kuwa kale. waxaanan u malaynayaa inaan ka gudubnay marxaladii cunaqabataynta lala beegsan lahaa qaar ka mid ah hoggaanka. haddii dayn cafinta aan weli la dirin, dib ayaan u dhigi lahaa.
waxaa hadda la magacaabay safiir cusub waana shakhsi awood leh oo leh khibrad iyo aqoon la xidhiirta arrintan balse ma tahay in uu hadda tago waxaan doonayaa in aan hoos u dhigno heerka xidhiirkeenna waxaanu la jeedaa tani ma tahay dowlad sharci ah ma u diri lahayd safiir in uu aqoonsi u raadsado dowlad iyo madaxweyne sharci darro ah sidaasi darteed waxay ila tahay waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda Maraykanku ay ka fakari karto iyada oo aan adeegsanaynin kaalmada bini'aadanimo sida ay sheegtay dowladda federaalka ah amaba ay ku eedeysay beesha caalamka taasi ma aha waxa ay Maraykanku sameeyaan hase yeeshee waa in aan eegnaa kaalmooyinka kale iyo weliba inaannu yarayno taageerada dowladdan aanu siino innaga oo weli caawinayna shacabka Soomaaliyeed scale down our support for this government without, if we can, still helping the Somali people. Ambassador Schwartz ayaa waxaan kale oo aan weydiiyey war-saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee beesha caalamka waxaa ka maqnaa oo aan saxiixin dalalka Qatar, Turkiga iyo Ethiopia. Dadka qaar la socda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in beesha caalamka aysan aragti midaysan ka lahayn Soomaaliya. Sidee kala qaybsanaantaasi ay u saameynaysaa xaaladda Soomaaliya gaar ahaan xilligan adag? Well, it's a very good question, and I was sort of, going that way in my last response, where I, by name, mentioned Qatar and Turkey and Eritrea, but Ethiopia is also a supporter of the Farmajo government. Although my sense is that it's a little less than it used to be, in part because Ethiopia's, I think, consumed. taasi waa su'aal wanaagsan dhinacaas ayuu hadalkaygii hore u socday gaar ahaan jawaabtaydii ugu dambeysay Qatar, Turki iyo Eritrea waan xusay balse Ethiopia lafteedu waa ay taageertay dowladihii hore iyo dowladdanba waxaan aaminsanahay in sidii hore aysan hadda carcar ugu qabin marka la eego xaaladda gudaha ee haysata Ethiopia iyo culaysyada caalamiga ah ee arrimaheeda la xiriira waase dhab in ay dowladdani taageerayso ayna qayb ka tahay isbahaysiga Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia marka kala qaybsanaantaasi waxa ay dhaawacaysaa codkii wada jiray ee beesha caalamka inta badan wadamada Soomaaliya xiriirka la leh waa kuwa soo jireena xaaladana ka walaacsan sida ay hadda tahay waxaana ay door bidayaan in xaalka ay u riixaan dhinaca xasiloonida iyo siyaasad la isku raacsan yahay oo degan are concerned about the course of events and are trying to influence things in favor of stability, consensual politics and progress. Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd khubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qaba in maamulkii hore ee Maraykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhaxeeya Ethiopia, Suudaan iyo Masar iyo tan Soomaaliya lafteeda. Maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? Wuxuuna yiri The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners. maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad dhaba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqaynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan waxaa jiray hadalhayn ku saabsan magacaabista wakiil gaar ah oo qaabilsanaan doona geeska Afrika kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman ma aqaano inay taasi dhacayso waxaan rajaynayaa inay dhacdo waa diblomaasi sare oo xirfad leh isaga oo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeennii Lubnaan wuxuu ahaa kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Maraykanka ee ku wajahan geeska wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Maraykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington madaxweynaha ayaa u magacaabay Moli inay noqoto kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Moli
waxa ay leedahay khibrad weyn oo dhanka bariga dhexe ah waxay sannado ahayd ku-xigeenka madaxa wadaxaajoodka maraykanka u qaabilsanaa afghanistan waana qof khibrad sarraysa oo wanaagsan leh waxay sidoo kale ahayd ku-xigeenkeenna ergegeenna magaalada jubba ee bishii disembar waxay aad u taqaanaa geeska afrika waana diblomaasi aad u karti badan aadna loo ixtiraamo nidaamka amniga qaranka maraykanka bugaraj waa qofka labaad ee xafiiska afrika ma aqaan haddii uu joogayo bob waxa uu danjire ka yahay kenya muddo 5 sano ah aad ayuuna ula socdaa soomaaliya iyo geeska afrika marka maraykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarraysay ee ka shaqaynaysa gobolka geeska afrika taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso maraykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno tony blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xoghayaha arrimaha dibadda wuxuu sameeyey xaflad dhaarina isagoo safiira wendy shermanna mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku-xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha afrika marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda maraykanka iyo maamulka biden waa kuwo yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha waxa maraykanku uu u baahan yahay waa in uu ku guulaysto gaar ahaan geeska afrika guud ahaanna afrika all kinds of senior people in the U.S. government in the Biden administration who are familiar and very able to do what the U.S. needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general. mudana safir dowladda maraykanka iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyeen dhismaha ciidan loo dhan yahay toddobaadyadii dhowaana waxaa la arkayay ciidamo dowladda ka tirsan oo deegaano kala duwan u goostay sidoo kale muqdisho waxaa jira saraakiil hore oo hadda dowladda kasoo horjeeda awood ciidana leh sidee taasay u dhaawacaysaa sharaftii ciidanka qaranka iyo rajadii laga qabay dhismaha ciidan adag oo amisom kala wareega amniga I think the United States did a good job building the DANAB, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and DANAB. I don't know if DANAB is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts. waxaan filayaa in maraykanku uu howl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka danab oo ah guutooyin ciidamo gaara waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhamaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin waxaan dalka ka soo tagay sanadkii 2016 inta badan waqtigeygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xoogan oo la geliyay dib u habeyn ciidamada waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhaweynaynin waxaa jiray musuqmaasuq dishibiliinkii ciidanka oo maqnaa mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn marka laga soo tago ciidamada danab waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu turkigu tababaray oo ka sakow guuldarrooyinkaasi waxaa jira in horumarro laga sameeyey dhinacyada maamulka dhaqaalaha iyo mushaar bixinta balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigii soo celiya maanay dhicin in the personnel system and in the finances and the salaries but in terms of the competence and capability of the Somali National Army and making it a national force that could bring security, that just didn't happen. Ambassador Schwartz ayaan waxaan kale oo weydiiyey dhawaan waxaan arkay qoraal aad samaysay oo ku aadan hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda ma aaminsan tahay in hay'addu hawshii ay u xil saareyd ay si wanaagsan u gudanayso I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well. And in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but most of what they're doing shouldn't be publicly known. But
run ahaantii kama jawaabi karo taasi. waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowi xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u samaynayaan amaba aysan u samaynaynin. run ahaantiina ka sirdoon ahaan waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay samaynayaan. waad arki kartaa marka ay samaynayaan baaritaanada iyo wixii la mida. waad og tahay in inta badan waxa ay samaynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado. laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagnayn in madaxa niisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka. waa taliyo siyaasadeed, waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda Qatar, taasi oo ka dhigaysa nin saamayn weyn ku leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynahaba. laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nuglaynayso in isaga oo ah madaxa niisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda. His role as the head of NISA, but it, I think, complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political. ugu dambeyn mudana Safiir, xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan. marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore, maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto? xageesa halkan ay ka aadaysaa? I'd like to see the countries that are supporting Farmajo and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that the direction for Somalia right now. waxaan jeclaan lahaa inaan arko wadamada taageeraya Farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii Farmaajo. waa in ay si qoto dheer u jalleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya. sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan. waxayna u badan tahay in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda Farmaajo ay iyaga u horseedi doonto. maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay Farmaajo iyo Fahad meesha ka baxaan. cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar. waxa ayna sanado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhawaysan. dhab ahaantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh kadibna Farmaajo. laakiin waxaan u malaynayaa hadda Farmaajo ayaa iyaga ku hogaaminaya waddo xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka, ayna ku heshiiyaan hanaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda. Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward. And they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that.